gudoomiye aqalka sare ee Soomaaliya hadal baa ka soo yeeray uu ku sheegay in ayaan daraa tahay in calankii Soomaaliya maanta aanu Hargeysa ka taagnayn oo uu ka taagan yahay calan kale oo ku sheegaya markaa ka Soomaaliland tawxiid kale maadaama aqalka sare ee Soomaaliya kuna tiin aqalkii gurtida bal arinta ka waran gudoomiye sakulo هذا maxaan kaga waran waa hadal duqodiimay calan baa ka taagan waanu ka taagnaanaya ninkii rogi karaya deerugu hay عبد حاشي هذا محل لودي gudoomiyaha aqalka sare ee Muqdisho والله ما قصري وسويسته بس انا قن قلبه waxa weeyaan wax kala oran maaye calanku uu taagnaanaya yaa ragilaashadana waalay hadallada Soomaaliya oo soo noqnoqdeen oo hadii madaxweynaha tahay ra'iisul wasaaraha tahay waxaad moodaa in Soomaaliland markaa ugu soo jeedaan iyagana xaaladooda wad la socota maxaad fariin guud aad u dir lahayd maxaan u dir lahayd islaantii waxa jiray inay garow iska hadlo inay gar tuwan iska hadlaya anigu ma hadal ku cesha meeshan Soomaaliland wayna jirtaa waana jiri doontaa tooda ka adkaade bal horta mid ha noqdeen oo dawlad ha noqdeen oo hay istaageen maxaa bay nagula hadlay gudoomiye sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya farmaajo isagoo 26 June ka hadlayay oo u dabaaldegay Muqdisho isagoo Soomaaliland ayuu yiri midnimada Soomaaliya waa ku muqadas sidoo aragtaa waxaan ku arkaa walaalo wada hadal intii booba ku filan Abdi Yusuf booba intuu si fiican buu la hadlay intaasaa ku filan waxda kale aan ugu dareemay laakiin waa nin cusub ha isluubaystiday diiwaangelintii baa dalka ka bilaabmaysa meelo ka mid ah bulshada maxaad ugu baaqaysaa وصوري مال لود تاكل شو حنقول باقي ديستي وانجيش هاسون بينو دار كارر كمر كينو قادنو غشرهد ساسين دور شو قولين واني دو داي تقاتو دق دق وقات قرب كينا الله قال بينو لنا